السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل كسو دوادا كورسا أقون channel دمان داودياشا دقيستياشا شرفت له. عشر كان مانتو وحو كسابسن يهي transportation across the cell membrane وعشر كي لحاد جبتر كاللابات وانا عشر كودن بيا عشر كان وحنو كاقها اللي دونا transportation across the cell membrane كا سيدا اي وح أمران اينو كاقها اللينا hore waxaan soo sheegnay cell membrane-ka inuu yahay semi permeable waxyaabaha qaar in ay tusayaan ay dhaxmari karaan baynu soo sheegnay shaqada ugu muhiimsan intaasay ahayd ee uu qabto waa inuu controlo dhaqdhaqaaqa shayasha soo galay iyo kuwa ka baxaya cell-ka inuu controlo ayuu cell membrane ku shaqadiisu tahay the major physiological processes that facilitate the movement of materials into and out of the cells waxaa jira saddex hab oo process ah oo fududeynaya dhaqdhaqaaqa walxaha inay galaan kana soo baxaan cell-ka dhexdiisa oo loo yaqaano transportation loo yaqaano saddexdaas hab cell-ku wax ku gali karaan waxna kaga bixi karaan waxa weeyaan iyadoo la marayo cell membrane-ka waa saddex hab waa diffusion osmosis iyo active transport diffusion waxa la yiraahdaa waa fidis osmosis na waa simow ahaan active transport na waa gudbin firfircoon ay waxa weeyaan wax ku gudbayaan waa habka diffusion ka fidista osmosis simowga and active transport iyo gudbin fircoon waxaanu kaga hadlaynaa qaybta koowaad diffusion-ka ayaan kaga hadlaynaa diffusion maxaa la yiraahdaa diffusion hadaynu qeexno waxa weeyaan is the movement of substances from the region of higher concentration to the region of lower concentration diffusion waxa la yiraahdaa walxuhu in ay ka soo tagaan meeshoodii oo ay ku badan yihiin ayna yimaadaan meel marka ay ku yar yihiin intaas la yiraahdaa waa walxuhu inay ka soo tagaan meel ay ku badan yihiin ka bacdina ay yimaadaan meel ay ku yar yihiin ayaa waxa la yiraahdaa diffusion la yiraahdaa diffusion kan marka uma baahna energy uma baahna wax energy iyo tamar oo u baahan yahay ma jirto waa fidis weeye diffusion ka tusaale hadaynu soo qaadano macaadinta sida cusbooyinka xididada geedka cusbooyinka ay carrada ka soo nuugaan macdanta iyo biyaha iyo habkaas iyo cunada waxa weeyaan la digestive gareeyay la dheefshiiday mindhicirada xayawaanada ku jiraan oo xididada ay nuugayaan oo dhiigga marka lagu darayo processyadaas waxa weeyaan waa diffusion weeye xididada markii ay soo nuugayaan macaadinta carrada hoosteeda ku jirta qaab diffusion ahaan ay waxa weeyaan ay ku soo gaarayaan way ku soo fidayaan cunooyinka la dheefshiiday ee mindhicirada yaryar ku jiraay ee xididada dhiigga ay qaadanayaan qaabka ay ku qaadanayaan ayaguna waxa weeyaan waa diffusion weeye waxa kale diffusion-ka kamid ah tusaale labaad gaseous exchange in plants and animals markii hawooyinka ay isweydaarsanayaan ama ay kala bedelanayaan xayawaanada iyo dhirta oo dhirta markii carbon dioxide la siinayo iyadana oxygen-ka waxa weeyaan ay bixinayso waa across the atmosphere-kaas gibilkaas ayaa lagu kala qaadanaya oo xayawaanka intuu geedka u tago ma siinayo oxygen-ka geedkana intuu xayawaanka u yimaado oxygen ma siinayo laakiin atmosphere-ka ama gibilka ayaa qof walba u soo dhigaya ka bacda halkaas lagu kala qaadanaya by diffusion process-ka labaad oo cell-ku wax ku galaan waxna kaga soo baxaan waxa la yiraahdaa osmosis waa habka simowga osmosis hadaynu qeexno is movement of water molecules from the region of higher water concentration to the region of lower water concentration through a semi permeable membrane simow waxa la yiraahdaa asaguna waa in walxuhu molecuulada walxaha ama gaar ahaan biyaha simow inta badan biyuhu ku shaqeeya asagoo biyuhu gaar ku yahay molecuulada uu ka samaysan yahay biyaha inay ka soo tagaan meel waxa weeyaan biyaha uu ku badan yahay inay ka soo tagaan molecuulada biyaha inay ka soo tagaan meel biyaha uu ku badan yahay ayna yimaadaan meel waxa weeyaan ay ku yar yihiin ayagoo soo dhex maraya dabool oo semi permeable ah walxaha qaar waxa weeyaan gudbin kara process-kan marka waxa weeyaan wax energy ah kuma baxayo there is no expenditure of energy in osmosis simowga waxa weeyaan
wax energy ah ku bixi maayo. waa processka labaad weeye ee biyaha. tusaale waxa weeyaan siimowga waa la garanayaa dadka webiga ag degan. biyaha webiga waa dhiiqo markuu waxa uu soo buuxsamo xilliga guugo kale biyaha webiga dhiiqo waa. warta waxa weeyaan oo webiga dhinaciisa ku taalana biyaha ku jiraay waa biyo cadaan badan oo waxa weeyaan saafi ah weey. habkaas waxa la yiraahdaa marka siimow baa la yiraahdaa. moleculadii biyaha ayaa waxa ay ka soo tagayaan meel ay ku riban yihiin oo biyaha webiga ah waxayna imaanayaan meel ay ku yar yihiin oo waxa weeyaan warta ah ama balliga ah sidaasayna ku soo galayaan. kaana waa tusaale weey. habkaasna seelashu waxa weeyaan way ku gudbayaan. processka saddexaad waxa la yiraahdaa seelku wax ku gali karaan waxna ka soo bixi karaan active transport ayaa la yiraahdaa. active transport waa gudbin firfircoon la yiraahdaa. waa when the direction of movement of certain molecules is opposite that of diffusion. diffusionka aynu ku soo sheegnay lidkeedii weeye. diffusionka waxaynu ku soo sheegnay walxuhu inay ka soo tagayaan meel ay ku badan yihiin ay imaanayaan meel ay ku yar yihiin. active transport wuxuu dhacayaa markii walxuhu meel ay ku yar yihiin ay ka tagayaan ay aadayaan meel ay ku badan yihiin ayaa waxa weeyaan active transport la isticmaalaa. waa gudbin firfircoon weeye. I mean from the region of their lower concentration towards the region of their higher concentration. waa cagsi isku yihiin marka processkan oo ah walxaha inay ka soo tagaan meel ay ku yar yihiin ay aadaan meel ay ku badan yihiin wuxuu u baahan yahay marka active effort ayaa loo baahan yahay. awood ama xoog waxa loo baahan yahay oo active gareynaysa hawsha socodsiinaysa. seelkaas waxa iskiisa uma wadi karo. marka energy loo baahan yahay tamar hawshaas lagu sameeyo. energy-gan waxa laga helayaa ATP ahaan loo helayaa adeno triphosphate ahaan ayaa loo helayaa. waxaa jiro hab labaad oo waxa weeyaan active transport uu u dhaco. wuxuu u dhacayaa by means of vesicles. wuxuu u dhacayaa qaab la yiraahdo lafa ahaan u dhacayaa ama waxa weeyaan qaybo yaryar ahaan u dhacayaa. مثلا waxaa jiro endocytosis waxa la yiraahdo. endocytosis waxa weeyaan laba nooc ayuu u kala baxayaa. a small particle or liquid droplet enters the cell by a process known as pinocytosis. waxa weeyaan dhibco yaryar oo biyo ah ayaa waxay galayaan cellka galayaan process waxay ku galayaan la yiraahdo pinocytosis ay ku galayaan oo cell drinking ah cellka ayaa cabaya. marka waa nooc endocytosis ka mid ah. process labaad ayaa jiro ah when the cell ingest large solid particles such as bacteria or food is called phagocytosis la yiraahdaa. marka cellku waxa weeyaan uu ruugayo ama cunayo shayaal adag uu qaadanayo sida bacteria oo kale iyo cunno wixii la mid ah waa phagocytosis la yiraahdaa ama cell eating cellka cunaya oo kale weeye. exocytosis waxa la yiraahdaa jiro waa reverse of endocytosis ayuu ka soo horjeedaa. endocytosis wuxuu ahay liquid shay dareere ah inuu cellka uu galo ay ahayd. kana waxa weeyaan shay waxa weeyaan adka ah inuu ka soo baxo cellka ayaa la yiraahdaa exocytosis la yiraahdaa. is the reverse of endocytosis ayuu ka soo horjeedaa by which a cell ejects was products or specific secretion products such as hormones by fusion. processkaas waxyaabaha adag ay uga soo baxayaan cellka ayaa la yiraahdaa exocytosis. dhageystayaal daawadayaal chapterkeeni labaad halkaas aynu ku soo gabagabeynaynaa. waxaan insha Allah taala noo bilaaban doono chapterka saddexaad iyo darsigeeni xiga. hada wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.